munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo khatimayay kutub kala duwan oo soo bilowday dhammaadkii 2012 kuwaas oo soo bilowday xilligii uu noolaa Allah u naxariistay Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax ayaa lagu qabtay beeraha 22aad ee duleedka bari ee magaalada Garowe. kulanka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Sheekh Cabdi Suldaan Xuseen Sheekh Dahabi oo ka mid ah culimada Puntland, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah golayaasha dowladda Puntland, culimo u diin, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland, ganacsato, cuqaal, nabadoono, waxgarad, dhalinyaro iyo haween. ugu horeyn kulanka waxaa ka warbixiyay Sheekh Cabdi Suldaan Xuseen Sheekh Dahabi, waxa uuna ka warbixiyay ardaydan iyo xalqooyinkii ay soo qaateen. waxaan si mug leh idinka mahadcelinaynaa xuduurkiina iyo ka soo qaybgalkiina qiimaha badan. runtii maanta waxaad fadhidaan madal lagu maamuusayo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam. kitaabta halkaa ku qoran sunanu nasaa'i, sunanu ibnu maaja, sunanu tirmidi iyo sunanu abi daawuud iyo almuwata lilimaami maalik. ma aha keliya ayaga inaan khitaamayno, laakiin kitaabtii dhammaatay kitaabkii ugu waaweyneyd weeye. marka la isku daro waxay ku dhowaanayaan 20,000 axaadiid ka badan oo maca asaaniidihim wa turuqihim ah. marka maanta kulamadii iyo xuduurkii in badan aad xaadiri jirteen haddii waa ka duwan yahay. horta sidaa u ogaada, maanta waxa weeye maaragtay waa shucuur kale. daraasadaasi waxay soo bilaabatay 2012 aakhirkii ayay soo bilaabatay. hadday xilligaas soo bilaabatay waxaa aasaaskeeda lahaa oo bilaabay oo hindisaheeda lahaa oo mudan in la sheego marnana aan la qarin karin. ilaahay ha u naxariisto, jannatul firdaws alcalaa allah ka waraabiyo sheekheeni weynaa ee caalimka ahaa ee saamaynta lahaa ee taariikhda lahaa Sheekh Cabdiqaadir Nuur Faarax. allah u naxariista, aamiin dhah. asaga ayaa sabab u ahaa iyo intii markaas waxa weeye maaragtay ku fikirka ahayd. runtii waa arrin aan la ilaawi karin. daraasadaasi waqtigaas soo bilaabatay ilaa hadda way socotaa. dad badan baa sida la sheegay wax ku bartay, mid in yar ka qaatay mid in yar badan in badan ka qaatayba. wax kale oo la sheegaya ma jiro. keliya waxaa la rabaa in meel walboo la joogo ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa la barto, ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoon loo yeesho. taasaa la rabaa insha allah. ilaahay idankii hadalka ku dheeraan maayo, waa waqti dambe, marti sharaf baa jooga. waxaan si gooniya u salaamayaa sheekheena muqriga qaariga Sheekh Xasan Alwaajidi oo marti noo ah, ayaan si gooniya u salaamayaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. runtii farxadda iyada lama soo koobi karo. Sheekh Maxamed Godane Xoosh iyo Sheekh Xasan Alwaajidi ayaa ka mid ahaa culimadii goobta ka hadashay, waxayna ugu horreyn bogaadiyeen ardayda dhammaystay xalqooyinkii kutubta ahaa ee kala duwanaa muddada dheerna soo waday. waxayna si gaar ah u booriyeen bulshadii ka soo qayb gashay kulanka. ilaahay baa fadli iska leh, cizi iska leh, sharaf iska leh. inaan isugu nimaadno goob cilmi oo ilaahay lagu weyneynayo. cilmiga marka la weyneynayo saaki siiqii salaada natiijada fajarka wuxuu nagu dhaqay suuradaha waqul rabbi zidni cilman. nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam aan ku salino allahumma salli ala muhammad. nabi ilaahay weydiisay lama oran, rasuul lama oran. waxaa la yiri waqul rabbi zidni cilman. subxi markuu salaada tukado wuxuu oran jiray allahumma inni as'aluka cilman naafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala cilmiga inuu naafic ka dhigo. nabiga calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo 30 shay buu ilaahay ka magan galay ka mid tahay cilmi aan waxba anfacaynin. ogaada qofka caalimka ah waxa la rabaa inuu is ilaaliyo. saddexda qof oo naarta lagu tuuray ugu horeeya caalim baa ka mid ah. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu nabad geliyo. صلى الله عليه وسلم. ما بعد حقيقة آد بان وفرحسناهي حفلدان ورنتي سفركي وكو آدي وإلهي نصيب سبحانه وتعالى. حقيقة ميلا بدنا صومر مري وعالم كأه إلا تركيا وعربها صومالي بدنا ميلا بدنا صوب بوقدي، لكن ضد رنتي سان نص جعل meel faqaara isugu imaanay. hadda markii la soo socday wadanka waa laga baxay, baadiya loo socdaa, meel ibra loo socdaa isu dhahay. markaan soo galan waxaan arkay gawaaridii dadka madaxda iyo mas'uuliyiinta kulli inay joogaan. marka kala gaceelkan idinka dhaxeeyo Allah idin ziyaadiyo. hal arrin baan rabaa inaan idin dardaarmo ikhwaani wa ahibaa'i fillah.
التمسك بالقرآن قرآن كان لقبصده قرآن كإلهي سبحانه وتعالى إن لغو حرناده معناها قرآن كإنه يفهمه أنا كدن برشيدة وباهنا قفرنتي علمي قصود ميه مجره مركا الله جل جلاله قرآن كاسو سدجي ونغو من نستحي ونغو كرامي هذا دفاع وباهنتا قرآن كاكو دفاع هذا عافمات ربط اسبتالك هذا قرآن كون نقوله هذا قولي قاعد إنه إلهي إصلاحي ربطي قرآن كاكو إصلاحنا حتى dadka waxa ka cabaadaan waxa kamida dumarka inay ku buuqaan oo dib badan iyo guriyaha mashaakil uu ka jiro dumarka laga cabaado حتى islaanta day kugu qayliso kitaabka kala bixi akhris bilow ha u jeesan dhinaceeda quraanka ku aad ilaah ba qaboojina subhanahu wa ta'ala shay mujarraba marka hal arin oo laga haajira jirto dadka hadda maanta aysan fahansaneen illa ma rahima rabbi in quraanka la akhriyo oo wardi laga dhigto la dhameeyo way badan tahay alxamdulillah laakiin maanta hadii la isweydiiyo qof quraanka dhageysi ku dhameystay ma jira waa yaryahay sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda waxgarad cuqaal ganacsato iyo mas'uuliyiin kale waxa kale oo waajib ku hadee dhamaantood islaamka nahay inaan dhiirigelino barashada diinta oo hadeen mas'uuliyiin nahay iyo hadeen waxgarad nahay iyo hadeen ganacsato nahayba u istaagno garab siino dadaalkoodana aynu ka mar dhaliyaan insha Allah ku dhiirigelino aniga ku hadlayaa golaha xildhibaanada ee hadda halka jooga iyo inta maqanba waxaan naga go'aan insha Allah inaan dhiirigelino culimada diinta iyo bahda waxbarashada dhamaan dadka culimada ay wadeen aqoonteeda muddo 13 sano ayuu Sheekh Dahabi soo waday barnaamijkan alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan leenahay ilaahay ka jarsiyo culimada faraha badan oo waxbaratay oo meesha fadhida qurux badanna cilmiga Allah ku anfaco inta ka bacdi waxaan rabaa inaan dhaho dadkeena runtii gobolatan u dhashay markaan runta ka hadlo cilmiga barano cilmigu waa inagu yar yahay waxaan u baahnay cilmigan si barano inaynuna waxa weeye sidaanaba inagu dadkeena wax yaqaan oo culimada aynu wax barano aad waqtiga gaaban salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ilaahna waa fuumaleen waxaan dareensanahay in munaasabadan maanta khatinkeeda loo joogo oo runtii tirada culimada inta la eego ku soo korodhay magaalada inay yani waxa ku baxay ay tahay juhdi aad u weyn juhdigaas runtii Sheekh Cabdirasaaq ama Sheekh Dahabi khayr Allah ka siiyo isaga iyo intii kale oo markaas kula garab taagneed isaga iyo intii runtii kula garab taagneed ba khayr Allah ku siiyo waxaan dareensanahay maanta magaalada Garowe culimo badanna way joogaan sida Sheekh Cabdirasaaq juhdiga u wada si lamida juhdiga u wada laakiin waxa jira deegaamo xoogaa durugsan oo haday Sheekh Maxamed waxyaalihii uu ka sheegay asaasiyaadka diinta ah ama waajibaadka salaada ay ku adag tahay inay sixi karaan marka iyada laftigoodu in jawlo lagu baxo xiliya qaybtood la aado waxaan leeyahay ilaahay ha ka abaal mariyo miisaanka xasanaadkana Allah kuugu daro ardayda ee kitaabtaas ka faa'iideysatana waxaan leeyahay ilaahay ha idinka dhigo kuwa ilaahay ku anfaco gudbiyana wixii loo soo gudbiyay waxaan leeyahay hal dardaarana ardaydaas mas'uuliyad baa idin fuushay runtii aan idin saarnayn markii hore oo aydan kitaabtaas iyo duruustaas aydan qaadan islaamka waxaan leeyahay ilaahay hortiisna mas'uuliyad baa idin fuushay muslimiintana waxaad u qaadeen mas'uuliyad oo kitaabtaas aad xambaarteen inaad gudbisaan oo aad sii gudbisaan mas'uuliyadaas abaa idin saaran intaad ka soo shaqeeyay xafladan iyo shaqadan quruxda badan oo ilaahay aanu amray oo ilaahayna ka raali yahay waan u mahadcelinayaa Sheekh Cabdirasaaq iyo ciddii la shaqaysay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan oranayaa ajar fara badan ilaahay ha idinka siiyo shaqadaad qabateen oo ilaahay ha idinku guuleeyo adduunyo aakhiraba oo midka magaranaysa ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam wallahi idinka dhigo cilmi naafa ilaahay idinka dhigo reer Garowe iyo dadka barteena waxaan oranayaa waxaan idin leeyahay jaanisku roobku markuu daaya weelka loo dhigtay jaaniskaas intii ka faa'iideysan mooyaan intii ka faa'iideystay horay mooyaan inteena dambe ka faa'iideysteen oo aan ku noqono aan barano diinta qof walba waajibka oo waxtar u leh
inuu barto lagana rabo qof walba dhinaciisa waajibga oo inuu barto waajibka. ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda Puntland Maxamed Faarax Maxamuud ayaa munaasabadda soo xiray waxa uuna bogaadiyey khatinka xalqada kutubta diiniga ah ee uu soo waday Sheekh Dahabi muddo 13 sano ah. inaan ka soo qayb galo kulamada la sameeyo ugu qiimaha badnaa meel kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Maxamed lagu khatimayo runtii waa wax aad iyo aad u weyn waaye. nasiib gooni bay ii tahay, sharaf bay ii tahay, maamuus iyo qadarin bay ii tahay. meel la isaga yeero oo lagu kulmo waa meeshii ugu fiicnayd waaye. dad muslimiin aan nahay, manhajkeennu waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada Nabi Maxamed alayhi salaatu wassalaam. waxaa waajib nagu ah, muhiim ah in aanu qiimayno, qadarino, soo dhaweyno, garab istaagno dadka noolaynaya kitaabka qur-aanka iyo sunnada Nabi Maxamed, dadka baranaya, dadka ka agdhow, waa dadka ugu qiimaha badan bulshada dhexdeeda. runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Dahabi oo dadaal weyn runtii sameeyey, oo kutubtii iyo muxaadarooyinkii iyo duruustii uu dhigahayay dad badan ay ka aflaxeen, ay ka qalin jabiyeen. Sheekh Cabdirasaaq waa mahadsan yahay. runtii masaajidyada wax ka wado aad baan uga warhayaa, ilaa waxay ku dhow yihiin 20 masjid saan rajaynayo. waa nin sheekha, haddana waa isim waaye Sheekh Cabdirasaaq, oo ma aha dareemaysaan magaciisa suldaan baa ku jira, marka waa isim, waa nin qiimo badan. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Sheekh Cabdirasaaq, jazaakumullahu khayran. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo saaxiibkay Xasan Waajidi, qaariga meel fog nooga yimid runtii. isagana runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa, jazaakumullahu khayran. dadka runtii dacwada ku jira, khayrka dadka ugu yeeraya, dad dhalinyaro, dad waaweyn, intaba waxa wanaagsan baraya iyo dadka baranaya, labaduba waa dadka bulshada ugu fiican weeye.